bal magacaaga horta khadra waa tuma khadra waa hooyo Soomaaliyeed dumarkan xubnaha qaawan marada xaydxaytay xaflad joogta dumarkan noqdee dhaqankii xayndaaway xaajigoodii wada cayriye xulaya suuqooda oon xog haynin ubadkay dhalan oo xeeqsan gebigoodba ingiriis miya xaalkan dhigay khatroy xaaji kala baad arrintan ma ingiriis baa ka dambeeyey dumarkii waa halaadeene warka miiska noo saaro waxba difaacine dhabta ka hada wiil yahow gafgaad gaysataan kuu gadbaxayaaye midaan garanin waajibkii iyo xilkii guula u abuuray mid hooyadii googooyo oo gubaya jiidhkeeda ha gumoobin khadarow haween waa gob iyo geesi saacida أنا حاجة رجع دفاعية. تمام. أنا حاجة. كلا ضحنا واي. بالكيات كذا هلا أركب. أقل كويا يقل مكو كويا هاي سلقبت كهولا وفولي بانتيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتو عن ونكسن ميل بعد دونك كتشوكتان كسو دوالة برنامج كيني قويسكي قربها الخضر وحانو ملاينا يا سؤالو أياد لسو قوحي سامات أفسلي والله كلا بحيا السود ده سؤالها تقبتين أدبا مس أصحابتا دمانتين ميل كسو تشوكتان إيسي كستو أنو مغليسان ما أنت رجع دمر بلوكرة سفية لكن وحان كتابن دونا حيالا بدونا حقيقة أنا قلبي كقوحية وانت على سينان وريها غالية خضرو aan mutaqaanaa su'aala ka weydiiyo ayaduna ay laftiga dib u isdifaacaysaa lawa qaranka haweenka waa sida asxaabta dhamaantiin meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaan waxaan idin leenahay soo dhawaada waan ku faraxsanahay inaad nala joogtaan fikradihiina ka dhiibanaysaan shaashada aan kugu soo qorin doonaa meelaha aad mutaqaanaa fikradaha gaarka ah aad ku soo diri doontaan insha Allah bal muhiimadda ugu horeysa waxaa waaye barnaamijyada hadda aan diyaarinayno ma noqon doonaan kuwa intaa ku ekaan doona waanu joogtayn doonaa waanu wadi doonaa insha Allah waxay noqon doontaa ilaa iyo xaaladuhu yaa ana xagga raga difaacaya kala baxna waa balkiyaad kaada hal arko ya khadro soo dhawow waa ku faraxsanahay soo booqashadaada iyo mataqaanaa aqbalaasha adiga aqbashay أنا وكل إيراني برامج كي يوحي قلت خضرة واتما خضرة وهوية صوماليات أو كنا ذلك يوكي جارها مقالة لندن especially إيست لندن مقالة مدنا أدنى أصبرت الدمر كصوماليات مروا بقرب سيسا إنك الصومال مدود كيرانيات شبي سيدا يرى حق درada أي حوجا رجع يراني بناها مروا البعانو الدمر كصوماليات وصبورة قرب كودانا ما شاء الله خضرة مكان مقعد على صوغة أميرة خضرة ما عنده وهي صومالية وهي قالئة وهي أبضله ما شاء الله أنا مريني هذا بدينا سنجل مالك هاي يا ميه هيقول رجس قرايني ويا سؤال أنا ربينا كويديو عن سؤال كويديو واحد ما هين واحد ربنا برنامج كأن كهذا دونه بيغضب وهان دونتا صح خضرة يوحد كذا مركن نقربها تشوفنا صح وبدن تهاي برامج اللي بدينين أديات كخطرة أهان محاد كأمن سنتهاي دوما كان قربها تشوقة كل جود وذا سينجل ماذر محينه قربها مركينه نميت دوما كانوا وذا سينجل ماذر ونقول خضرة ورطة أرمه هو كلا دوينهين الفم الولبنا سبوا أصامي يا بربركم لنعو دونا بحكي مادي أنا وين كستر أبضيو يعني رجع إنه كإيمان يبربركم بقول كي بس ديته horta aynu fahano macnaha la yiraahdo single mother sida ay u yaqaanaan dadkan aynu la noolnahay iyo sida ay u yaqaanaan ummadda Soomaaliyeed horta erayga single mother waa eray aad macnihiisa qof walba oo Soomaaliyeed u fahmi karo single oo garanayso oo kaliya adarna waa hooyo kaliya macnaha waxa loogu bixiyay oo title-ka waxa keenay waa dad dalkan aynu ku noolnahay dhinaca saboorka ama benefitka ayaa hooyadu markay keli tahay waxay ogaadeen inay hayso hawshii aabaha iyo hawshii hooyadaba sida ayaa waxaa loogu sameeyay magac gooni ah hooyo keliya si saboor dheeraada ama lacag hooyada keliya loo siiyo
ayay yacni dhan wanaagsan ayay dadkan aynu la noolnahay ka sameeyeen way samayn karayeen inay family walba oo ilmo haysta ay isku lacag siiyaan balse waxay dareemeen hooyadani inay hooyo keligeed oo mas-uuliyaddii aabaha iyo tii hooyadaba ay iyadu hayso waa tahay haddaba siday u arkaan ragga soomaaliyeed maxay u yaqaanaan single mother waxay u yaqaanaan anuu tayda markaa ka hadlo naag dhimatay oo waxbaba ahayn oo la nacay oo baktiray oo de maya laga tagay gabdho laga tagayba waa la arki jiray waa waxanoo single mother magaciibu wuxuu ka dhigay wax iyo cay si qaldanba u fasirtay aniga fikirkaygan ka hadlaya marka adaa dooda ku wataa ee oo soo noqon doona qodobkaas single mother-nimada iyo bahalkii qodobka anigu aan rabo inaan ka hadla ee anigu aan maskaxiyan aan isleeyahay waa problemka ka imaaday waxa waaye dumarkii Soomaaliyeed markay qurbaha imaadeen arrin baa meesha ku soo korodhay wadankii markii joogay dhaqan ahaan ninka baa wax walba laga sugu jiray ninka biilka laga sugu jiray wax kasta oo dumarku ay u baahan yihiin macal marada jimaha yarka ay xiranayso qurbaha markii la imaaday dumarkii waxa la yiri waad isku filan tihiin rag iyo dumar baa tihiin idinkaaba ka xaqooq badan women's first baa lagu yiri dumarkaaga number 1 ah aqligii marka sidaas loogu yiri ayay waxay iska dhaadhiciyeenba inay raggii ay dulaysan karaan markaan taa ku leeyahay qodobka aan soo socdo waxa waaye ma loo oran karaa laba dhaqan ba isjiiray dhaqanna waa dhaqankii gaaladu ay siisay oo idinkaa fast ah dhaqanna waa dhaqankii Soomaaliyeed oo aynu ogeyn oo raggu uma taqaanaa hayeenka iyo haweenka uma taqaanaa ku waday ma loo oran karaa mid labaad ninkii wuxuu rabaa inuu noolaado inuu shaarka u taagan yahay inuusan jika gelin inuusan dumarka wax la qaban inuu biilka gadaal soo adeego inuu akoonkiisa la socon يعني دقن كينو ودن كي كجوجني أيه حوجا السيرة يدقن كام قرن كرنا دوما كنا استخدم يوقف إيديستين وعلى كوه استخدم روه وكنتها وعدي كرتا وعلى شيء جوين ومدة الصومالية بابية إن دقن كان سكول عي لبضع بناء واللي بقادك وكلفك بس روح نكون شيء واحد كشن قرصة إلا يري فيرست ليدي هرت الليدي فيرست وحلو يري سيدا أي إنه إسرانا أيه وحنا ولي فهمين dumarka Soomaaliyeed inay ka daciifsan yihiin I mean physically inay ka awood yar yihiin ragga taas ayaa loo yiri yani first lady first wadanka qurbaha waa sax baa loo yiri samaad garan dhaqanka tan kale in yani markii dumarka awood la siiyay ay damcaan inay gumaystaan ragga aad leedahay horta raggu anigu sida aan aaminsanahay 80% ayaga gumaysiga isu keenay sababtoo wadankan sidii Soomaaliya uu aabuhu uga dhaqmi jiray oo u shaqeynayay oo isagu u keenayay buu dhaqmi karaa ilaa hadda taas aduu yiraahdo reerkan anaa xaas ka dhalay caruurtana anaa dhalay sidii Soomaaliya ayuu dhaqmay balse ma rabo wuxuu yirina aynu kala noolaano samaad garan isagii baa caasha iska dhigay iyadina cali buu ka dhigay gurigii awoodii guriga iyo awoodii familka iyadii buu ku wareejiyay sax samaad garan isagii waa nin dhuumanaya waa nin aan guriga markii la soo garaaco aan furi karin waa nin guriga markii repair xitaa yimaadaan awoodii alla siiyay ayuu iska xayuubiyay haddana wuxuu rabaa inuu gurigii ka atooreeyo oo isagii ninka ahaado marka aad leedahay gurigii ma imaan karo oo yani problem xaafadii baa haysta oo asagii baa gabadhina ku qoray asagii guri kale isku qoray ma waxa leedahay guri kale reer kale leeyahay maya reer kale ma leh hadduu doono qaarkood inkastoo ay qarsadaan oo waxyaalo badan soo baxeen khadaro maya address buu samaysanayaa gabadhana wuxuu leeyahay hooyo kaliya single mother inaad tahay dawladda u sheeg maalin walba karaamyo ayaa magaalada lagu soo qabtaa oo niyuusyada lagu soo qoraa sidaad aragtayba samaad garan hooyo kaligeed nool oo ilmaheedii barayfadii geysanayso lacag fara badan ku bixinayso gaariyada ugu dambeeya wadato markii la daba galay nin lacag fiican waliba haysto oo shaqo fiican haysto oo uu qabo samaad garan marka waxaan oran karnaa ragga dhibaatada familka iyo single mother-nimada badisayba waxa weeye raggii ayaa diiday inay mas'uuliyadoodii qaataan dawladana u gudbiyaan inay reerkan iyagu mas'uul ka yihiin waayahay su'aal waxaynu aragnaa wadankeena ku nool nahay UK
waxaynu aragnaa maamooyin tiro badan صح xafladaha taagan اي ilmihii aan la joogin واقف ma la oran karaa ninkii laftigiisa waxaa ka xanaajiyey oo guri uga cararay maamadii uu ka sugayey gogol oo ka sugayey jiif oo ka sugayey wanaag oo ka sugayey gogol cunto ka sugayey bay xalfad jidha ma la oran karaa dhibka halkaasuna waa ku yimi taas waxaan oran karaa anigu waa 5% sababtoo ah dumarku yacni ma aha kuwa mar walba xaflada wada taagan qofka humanka ahi wuu u baahan yahay one day sababtoo ah the whole day ayada ubadka haysan ninka ugu sokeeya waa ninka soo shaqeeya ee maalin oo dhan maqan ama habeen oo dhan maqan maalin oo dhan hurda soomaad garan Monday to Friday markay sii wado dugsi geyso school geyso kariso kilin garayso way u baahan tahay once a week in ay yara baxdo ama asxaab u tagto ama xaflad laga soo casumay balse 5% ka aan ku leeyahay waa jiraan dumar garbasaartu garabka isaga saaran tahay oo iska socda oo iska ordayo mar walba lama dhihi karo ragga wada xun laakiin inta dumarka xun baa yar baan ku leeyahay ya Soomaad garab mar walba gabadha Soomaaliyeed waxay jeceshahay inay iyadu ninkeeda qanciso oo ay wax walba adaa ku wata halkaas su'aal baa iga soo dhexbaxday markiin xalfad dhigayno oo aan sideen ognahay xalfaduhu ay socdaan boqolkiiba 70 dumar baa u badan raggan ma joogaan rag badan ma joogaan sababtaasi ma u caddahay miyayna ku caddayn waa wada caddahay miyayna ku caddayn inay dumarkii dhaqanka ka tilaabsadeen oo ay guriga ka soo tageen okay kuma caddaan karto taa ma oran karno isaga laftigiisii inta dibadda joogta dumarka in ka badan ayaa mafrisheeda ku jirta oo isaga laftigiisii mafrish ama ugu barbusaaraya is not in the home shaqada kuma maqno walaal okay shaqa kuma maqno shaqada ayada shaqada uberka khadaro ayaa shaqooyin badan ku hoos jira Soomaad garan shaqo ugu maqan yahay reerkii Soomaad garan magaalada ku jira 10 naagood oo kale shaqaasanay 12 shaqo kale ku jira kuwa qodbad sir ku qaba oo ilma kaga dhaldhalaya oo waxa la dumarkii caruurtii waa uu dayacay kuwiisii caadiga ah waa dayacay kuwiisii uu dhalay buu dayacay kuwa kale afar intuu ka tago ayuu 7 u galayaa okay marka maamo og ayadiiba iyadii og inay nin ka soo tagay reer ka soo tagay oo ilmo ka soo tagay oo caruur ka soo tagay oo reer dhisan ka soo tagay midoo soo xareysan soo kama liidato